caawa magaalada muqdisho ayaynu ku bilaabaynaaye ikraan tahliil faarax oo la shaqayn jirtay hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa la la'ayn ka badan 2 bilood waxaa xalay fiidkii dawladdu war ka soo baxay lagu sheegay in ikraan ay al-shabaab dileen qoraal lagu baahiyay warbaahinta dawladda Soomaaliya waxaa lagu sheegay in hay-adda sirdoonku ay dabagal samaysay oo ay ku ogaatay in gacanta ay u gashay al-shabaab kadibna ay dileen al-shabaab iyadoo tacsi u dirtay qoyska gabadhaasi ka baxday balse al-shabaab ayaa qoraal ay soo dhigeen iyaguna mid ka mid ah warbaahintooda waxa ay ku fidiyeen oo ay iska fogeeyeen dilka ikraan qaali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay ikraan tahliil faarax ayaa BBC-da la hadashay waxaana u sheegtay inaanay jirin war cad oo qeexaya xaalka gabadheedu geeri iyo nolol gabadhayda waa nooshahay ma dhigi karo nisa ku tuhmaa nisa tuhunka waxa igu dhaliyay meesha gabadha laga qaaday iyo gaarida qaaday meesha meel la soo gali karo maaha meesha meel qoladaas nisa bis ay ka taliso waaye meel amnigeeda sugan yahay waaye meel hadda oo gabadhaas dad kale ugu imaan karaan ma aha iyadoo kiisku halka taagan yahay ayaa haddaba mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo xubnaha mucaaradku ay dalbanayaan in arrintaasi baadhitaan lagu sameeyo ikraan ayaa dawladdu ay meel ay ku sheegto ay rabaan iyo warcad in la helo xildhibaan aamina maxamed cabdi ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta arrintaasi ku daba jiray marka arrinta ikraan sidii shalay ay noogu muuqatay maantana noogu muuqataa maalinkii la waayay ilaa ay hadda waxaan aaminsanahay hay-adda nabad sugidda inay ikraan gacanteeda ku jirto hadday dhimatayna iyadaa laga rabaa meedkeedii hadday nooshahayna iyadaa laga rabaa maadaama ay hadda ay tacsi soo direen waxaan isleenahay dabcan haddee dhimashadeedii wax ay ku xaqiijinayaan ilaa hadda haddaanan haynin oo meedkii aanan haynin oo aanan haynin yacni waxyaabaha qofka dhintay caddaymo u ah hadda waa dhimatay Facebook lagu soo qoray wax oo lagu sabri kara maaha ama lagu qancin karo marka waxaan leeyahay prime ministerka dalka isaga prime ministerka dalka ka ah isaga taliyaashaasna ay hoostiisa imaadaan oo taliyaal u yihiin annaga waxaan rabnaa ikraan cadeynteedii inaan helno meedkeedii inaan helno haddaba si aynu arrintan wax uga ogaano iyo kiiskan soo jiitamaya waxaa khadka Skype-ka si toos ah ugu jira Ismaaciil Cismaan oo hore hay-adda sirdoonka ee Soomaaliya uga tirsanaa agaasime ku-xigeenna uga soo noqday soo dhawo Ismaaciil al-shabaab way iska fogeynayaan dilkan ikraan arrintan sidee kula tahay waan ku salaamaya adiga dhammaan daawadayaasha oo dhan meel bay joogaan arrintan waa arrin murugo leh 26 June sanadka 2021 ayaa la waayay ikraan waxaana markii ugu dambeysay ee raacday gaari la yaqaan oo ay leedahay hay-adda nabad sugidda marka 26 June ilaa iyo shalay oo la sheegay geerideeda inta u dhaxaysay ayaa tuhun badan waxa uu ku jiraa in la cadeeyo qofka waday oo la yaqaanay oo ay ikraan isku aamintay in la waraysto in la qabto in maaragtay baaritaan dhab lagu sameeyo marka kiiska dhab waxa ku hadaaban waxaad moodo cover up ama wax la qarinayo marka meydka qofna lama dhihi karo qof waa la dilay ilaa la arko meydkii qofkaas ama maaragtay hay-adaha amniga ay kor istaagaan ay caddeeyaan qofkaas inuu dhintay marka waxyaabo badan oo mugdi ayaa kiiska ku gadaaman waa gartay mugdiga aad sheegtay haddaynu hore ugu soconno maxaa keenay in ay dawladdu ka aamusnaato 2 bilood iyo jarjar oo iminka la yidhaahdo way dhimatay tuunkay ka mid tahay sababtoo ah qofka markii la waayo dawladdu waxay ahayd haddii sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda la la'yahay 3 maalmood markii ay bilaabatay in la waayo waxay ahayd inay ka hadasho ay tiraahdo qofkaasaa la la'yahay isla markaasna ay rescue team ay dirto qofkii la raadiyo qofkii ugu dambeeyay raacdana la waraysto baaritaan dhab ah lagu sameeyo marka maysan dhicin 26 June waxa ku soo xigtay shalay oo ahayd 2 September oo ay dawladda sheegtay gabadha inay dhimatay laakiin maysan sheegin meesha ay ku dhimatay cidda dishay iyo qaabka ay u dhimatay in maaragtay kooxda al-shabaab ay dishay ay sheegeen laakiin wax cadayna ma sheegin kooxdan way iska fogeysay ikraan sida ay qoyskeedu sheegayaan Ismaaciil wadogta waxay dhahdeen guri meel aad loo nabadgelyada loo suga ayay deganeyd hay-addana dee way ka shaqaynaysa oo nabadgelyada aad baa loo sugayay marka sidee bay ku dhacday in ikraan ay meel fara dhexe ku dhacdo oo laysku rixriixo oo kolba dhan la yidhaahdo ama ciddana dishay ama ciddaasi ma dilin waa runtaa ikraan iskamaysan bixin manaysan buubin ikraan wiilka ka waday gurigeeda gaariga ay raacday waa la yaqaanaa maxaa wiilka loo soo qaban waaye maxaa hay-adaha dambi baarista loogu dhiibi waaye maxaa loo wareysan waaye sideedaba marka faldambiyeed noocan uu dhaco qofka ugu dambeeyey oo qofka la la'yahay maaragtay lagu ogyahay ama xaqiiqadeeda loo haya ayaa la wareystaa qofku wuxuu sheegaya gabadhaas wuu qaaday gaariga meesha uu geeyay sheegaya meesha uu geeyay dad baa joogay dadkii la soo qabanaya macna case waa case taxana ah oo silsilad ah oo isdaba socda laakiin haddii baaritaan uusan dhicin
laba bilood wixii loo aamusnaa oo waa dhimatay ay kusoo xigtay ayaa un baa dhacaya laakiin u malayn maayo kiiskan inay dowladda federaalka si dacda ay maaragtay u dabagashay ama ay uga farcelisay. waxaan kusoo gabagabaynaya ismaaciil oo markaad eegtanaysaa hay-adda nabad sugidda kiiskan iyo dhowr kiisoo kale ayaa iguna jiray sidee bay hay-addu kiisaskan waaweyne sidana u maaraysay sidee bay kula timar haddaad adu ka tirsanaan jirtay sida loo maareeyey waa si qaab aan dawli ahayn waa qaab qaldan ikraarna maaha qofka keliya oo ku maqan gacanta maqan oo tuhunka laga qabo inay ku maqan yihiin gacanta hay-adda nabad sugidda dad badan baa jira oo lala-yahay oo saraakiil ah oo raq iyo ruux meel ay degaan ilaa hadda lala-yahay laakiin kiiskan wuxuu kaga duwnaa ikraan waalidkeedii ayaa afka furtay oo bilaabay inay maaragtay idaacadaha iyo miidiyaha la hadlaan oo ay weydiiyaan gabadhoodii meesha ay ku dambeysay marka qaabka loo xaliyey 4 sano ugu dambeysay hay-adda nabad sugidda waxa waaye qaab aan dawli ahayn qaab aan hore loogu aqoonin hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa. aad baad u mahadsantahay ismaaciil oo iga soo bilay dalka maraykanka aad buu mahadsan yahay dalka afghanistan baynu imikana hore ugu soconaynaa waxaynu ka hadlaynaa dadka lagada tira badan